weligaa ku degdeg xukunna ku ridin qof aadan aqoon iyo waxaadan aqoonteeda lahayn. wiilkan waa wiil dhalinyaro ah, waxa uu yimaadaa masaajidka markasta isagoo aan awoodeeda lahayn oo indhoola ayuu soo tiilaa oo soo luudaa si uu masaajid ku yimaado. kolka uu yimaado waxa uu sii dheer inuusan garanayn halka uu taagan yahay, sidaa darteed ayuu dadka ku dhowdhow jeebabkooda ama goobta uu ka gaaro u qabsadaa. ninkan ayuu ku tijaabiyey maanta, balse ninkan si kale ayuu u fahmay. waxaana uu moobilkiisa soo saaray, kadibna waxa uu u maleeyay inuu ka xadayo oo kale ama uu xatooyo wado ninkani oo soo saaray. waa salaadii ayaana sii socota oo salaadii ay sii wateen. wiilkii mar kale ayuu gacantii taabtay si uu u hubsado in salaadii weli lagu jiro maadaama uu indhool yahay. ninkan aad ayuu u shakisan yahay, waa u yaaban yahay, muxuu kaa taataabanaya ayuu isleeyahay. dabadeedna salaadii ayaa laga baxay. halkan weeye marka uu garanayo ninkani sirta ka dambaysa wiilkan. waa uu arkay, aad ayuu u yaabay, waxaana uu ogaaday inuu wiilkani indhool yahay. waa uu sacnaantay, waana halkan goobta ay ka bilaabanayso inaad sacnaanaato ama aad qomamayso oo aad tidhaahdo maxaan sidaa ulanayay. waa marka la leeyahay malaha wanaagsada oo malaha walaalka ah ee muslimka u wanaajiya ama dadka kaleba si malahaaga loo wanaajiyo. qoyska wiilkan ayaa ah qoys indhoolaa inta badan, waxaana ay soo maraan waddada. aabbihii waa indhool, waana qoys ilaahay sidan u qabtay, waana ay ku xamdinaqaan mar kasta oo way u mahadiyaan ilaahay. iyagoo halkan soo maraya ayay maalin maalmaha ka mid ah ku dhaceen ninkan waa uu carooday, balse marka uu arkay in ay indhool yihiin ama indhool ninkan yaha oo u wato ayuu raalli geliyey. waana marka lagu leeyahay malaha wanaagso ha cadho boodine wax hubso.